كدشي بركة dadka guryuhuna way ku dumeen ilaa 20 guri way baabeen gobashii iyo cuntadina way ka raacday 25 guri deyrasha ka dumay dawladda hoose way duntay local government-guna uu dumay haye baddu dhinac walba badda iyo barigu way soo gaareen biyihii badda iyo biyihii dadku way isgaareen magaalada lama gali karayo marka xaaladdu waa iska caadi wax laakiin dad oo ku dhintay ma jiraan ma daadad ka dhashay roob idin da'ayba mise waa badiyo idinku soo fatahday badina way soo fatahday daadadna way ka dhasheen dusha kaga soo rogmadeen marka sababtu waa maxay ma roobabka saameyn ku yeeshay badda mise waa un daadad dee waxa ku beebay roobabka way badna way buuxdaa badda oo buuxda ayay joogtaa badda oo buuxda roobashuna da'een marka biyihii badda iyo biyihii roobka ee dee dhulka ka yimiday dusha ka yimiday iyo biyihii badda isgaaray marka waa sida weey dadka ku barakacay qoysaska ku barakacay inta ay gaarayaan qoysaska barakacay ilaa 200 oo qoys way gaarayaan 200 oo qoys oo baddu gashay iyo biyihii badda isku dhufteen ayaa barakacay marka xagee bay joogaan dadka hadda xaaladooda iiga warbixi dadka de guryahooda ay bulbulanayaan xagee tagayaan meel loo baxayo ma jirte guryahoodii bay dadku jinkadii iyo looxba isku nanabayaan dadku markii hore ee dabayluhu dhacayeen baa magaalada in laga baxo laakiin imika dadku magaalada iska joogaan xaaladda magaalada niyow adaan kaaga waramo xaaladda magaalada waxay ku yeesheen jidadkii magaalada soo galay oo dhan way go'an yihiin jidadkii magaalada soo galay way go'an yihiin lagamana baxayo magaaladii lamana soo galayo roobashaa wadooyinkii gooyey daadashaa wadooyinka gooyey marka waa sidaa weey waa sidaa dhaqaalaha ee khasaaray ee deegaanka khasaaray khasaare aad u badan weey khasaare aad u badan baa dadka deegaanka gaaray khasaaraha meelaha imika deegaanka laftigiisa qaar xoolaha daad ka qaaday baa jira qaar guryihii daad ka qaaday baa jira qaar ay dabayl duufaani ku dhacday oo waxaa jira muxuu ahay imika annagu aan u gurmanayna hadda oon bacawisnaa jira waan gartay adinku dadka hadda maxaad u qabanaysaan oo caawimaad ah dadka annagu waxaan u geynaynaa imika bacahay roobka ka galaan ayaan u sugnaa intaasaan dhiigjoojin ka dhigaynaa marka ilaa iyo hadda roobku ma idiin da'ayaa oo daadadkii ma socdaan ilaa hadda roobkuu da'aya daasuna waa socdaa awal waxani wax dhici jiray miyaa mise wax haddartaan idinku cusub waay bishii hore sanadkii hore bisheedii nagu dhacay sanadkii hore bisheedii duufaantii dhacdoo kale weeye iyo xeebaha ku dhacay duufaantii berigaa dhacdoo kale maxaa hadda qorshe idin ah qorshe annaga waxa noo ah ummadda wixii aan gaarsiin karray inaan gaarsiino imika hadday bac tahay iyo hadday cunto tahay wixii aan heli karro inaan gaarsiino ayuunbaa nagu waajib annaga dadka nin walba halkii au joogay muu joogaa meel loo baxa ma jirto war meel loo baxaya ma jirto nin walba halkii roob ku heli muu taagan yahay sare taagan yahay biyuhuna way socdaan daadkii magaalada ku soo rogmaday iyo kii badda isgaaray waa kuwa weey waxa imika ugu daranay waa taa weeyi marka meelaha qaar waan ka sii daynay kuwii aan ka sii daynay baa socda mooska biyaha baddaan ku darray badda biyihii daadkee soo gala badda ku darray waa la oodi doonaa haddii ilahay annaga waan oodi doonaa ilaa iyo hadda wax gurmad ah oo idin soo gaaray ma jiraan marka maya wax gurmad oo ilahay wax na soo gaaray gurmadka ilaahay mooyaane gurmad bilaadan hayna ma jirto waxa ka dhashay baraka dadka guryuhuna way ku dumeen ilaa 20 guri way baabeen gobashii iyo cuntadina way ka raacday 25 guri deyrasha ka dumay dawladda hoose way duntay local government-guna uu dumay haye baddu dhinac walba badda iyo barigu way soo gaareen biyihii badda iyo biyihii dadku way isgaareen magaalada lama gali karayo marka xaaladdu waa iska caadi wax laakiin dad oo ku dhintay ma jiraan ma daadad ka dhashay roob idin da'ayba mise waa badiyo idinku soo fatahday badina way soo fatahday daadadna way ka dhasheen dusha kaga soo rogmadeen marka sababtu waa maxay ma roobabka saameyn ku yeeshay badda mise waa un daadad dee waxa ku beebay roobabka way badna way buuxdaa badda oo buuxda ayay joogtaa badda oo buuxda roobashuna da'een marka biyihii badda iyo biyihii roobka ee dee dhulka ka yimiday dusha ka yimiday iyo biyihii badda isgaaray marka waa sida weey dadka ku barakacay qoysaska ku barakacay inta ay gaarayaan qoysaska barakacay ilaa 200 oo qoys way gaarayaan 200 oo qoys oo baddu gashay iyo biyihii badda isku dhufteen ayaa barakacay marka xagee bay joogaan dadka hadda xaaladooda iiga warbixi dadka de guryahooda ay bulbulanayaan xagee tagayaan meel loo baxayo ma jirte guryahoodii bay dadku jinkadii iyo looxba isku nanabayaan dadku markii hore ee dabayluhu dhacayeen baa magaalada in laga baxo laakiin imika dadku magaalada iska joogaan xaaladda magaalada niyow adaan kaaga waramo xaaladda magaalada waxay ku yeesheen jidadkii magaalada soo galay oo dhan way go'an yihiin jidadkii magaalada soo galay way go'an yihiin lagamana baxayo magaaladii lamana soo galayo roobashaa wadooyinkii gooyey daadashaa wadooyinka gooyey marka waa sidaa weey waa sidaa dhaqaalaha ee khasaaray ee deegaanka khasaaray khasaare aad u badan weey khasaare aad u badan baa dadka deegaanka gaaray
khasaaraha meelaha imika deegaanka laftigiisa qaar xoolaha daad ka qaaday baa jira, qaar guryihii daad ka qaaday baa jira, qaar ay dabayl duufaani ku dhacday waxaa jira muxuu ahay imika annagu aan u gurmanayna hadda oon bacawisnaa jira. waan gartay. adinku dadka hadda maxaad u qabanaysaan oo caawimaad ah? dadka annagu waxaan u geynaynaa imika bacahay roobka ka galaan ayaan u sugnaa, intaasaan dhiigjoojin ka dhigaynaa. marka ilaa iyo hadda roobku ma idiin da'ayaa oo daadadkii ma socdaan? ilaa hadda roobkuu da'aya, ilaa hadda roobkuu da'aya, taasuna waa socdaa. awal waxani wax dhici jiray miyaa mise wax haddartaan idinku cusub waay? bishii hore sanadkii hore bisheedii nagu dhacay, sanadkii hore bisheedii duufaantii dhacdoo kale weeye iyo xeebaha ku dhacday, duufaantii berigaa dhacdoo kale. maxaa hadda qorshe idiin ah? qorshe annaga waxaa noo ah ummadda wixii aan gaarsiin karray inaan gaarsiino imika, hadday bac tahay iyo hadday cunto tahay wixi aan heli karro inaan gaarsiino ayuunbaa nagu waajib annaga. dadka nin walba halkii au joogay muu joogaa, meel loo baxa ma jirto, war meel loo baxaya ma jirto, nin walba halkii roob ku heli buu taagan yahay, sare taagan yahay, biyuhuna way socdaan. daadkii magaalada kusoo rogmaday iyo kii badda isgaaray waa kuwa weyn, waxa imika ugu daranay waa taa weeyi. marka meelaha qaar waan ka sii daynay, kuwii aan ka sii daynay baa socda. mooska biyaha baddaan ku darray, badda biyihii daadkee soo gala badda ku darray. waa la oodi doonaa haddii ilahay annaga waan oodi doonaa. ilaa iyo hadda wax gurmad ah oo idin soo gaaray ma jiraan marka? maya wax gurmad oo wax na soo gaaray, gurmadka ilaahay mooyaane gurmad biniaadan hayna ma jirto. waxa ka dhashay barakac baa ka dhashay, barakac. dadka guryuhuniyo way ku dumeen, ilaa 20 guri way baaba'een, gobashii iyo cuntadiina way ka raacday. 25 guri dayrashaa ka dumay, dawladda hoose way duntay, local governmentiguna uu dumay. haye baddu dhinac walba badda iyo berigu way isa soo gaadheen, biyihii badda iyo biyihii daadku way isgaadheen, magaalada lama gali karayo. marka xaaladdu waa iska caadi, wax laakiin dad oo ku dhintay ma jiraan. ma daadad ka dhashay roob idiin da'ayba mise waa baddii oo idinku soo fatahday? baddiina way soo fatahday, daadadna way ka dhasheen, dushay kaga soo rogmadeen. marka sababtu waa maxay? ma roobabka saameyn ku yeeshay badda mise waa un daadad? dee waxa ku beebay roobabka way badduna way buuxdaa, badda oo buuxda ayay joogtaa, badda oo buuxda roobashuna da'een. marka biyihii badda iyo biyihii roobka ee dee dhulka ka yimiday, dusha ka yimiday iyo biyihii badda isgaadhay. marka waa sidaa weeye. dadka ku barakacay, qoysaska ku barakacay inta ay gaarayaan? qoysaska barakacay ilaa 200 oo qoys way gaarayaan, 200 oo qoys oo baddu gashay iyo biyihii badda iskugu dhufteen ayaa barakacay. marka xaggee bay joogaan dadka hadda? xaaladooda iiga warbixi. dadka dee guryahoodii bay buurbuuranayaan, xaggay tegayaan? meel loo baxayo ma jirte, guryahoodii bay dadku jinkadii iyo looxii bay isku nanabayaan. dadku markii hore ee dabayluhu dhacayeen baa magaalada in laga baxo, laakiin imika dadku magaalada iska joogaan. xaaladda magaalada niyahow dee haddaan kaaga warramo, xaaladda magaalada waxay ku yeesheen jidadkii magaalada soo gelay oo dhan way go-an yihiin. jidadkii magaalada soo gelaya way go-an yihiin. lagamana baxayo magaaladii, lamana soo galayo. roobashaa wadooyinkii gooyey, daadashaa wadooyinka gooyey. marka waa sidaa weeye, waa sidaa. dhaqaalaha ee khasaaray ee deegaanka? khasaaraha deegaanka khasaaray khasaare aad u badan weeye, khasaare aad u badan baa dadka deegaanka gaaray. khasaaraha meelaha imika deegaanka laftigiisa qaar xoolaha daad ka qaaday baa jira, qaar guryihii daad ka qaaday baa jira, qaar ay dabayl duufaani ku dhacday waxaa jira muxuu ahay imika annagu aan u gurmanayna hadda oon bacawisnaa jira. waan gartay. adinku dadka hadda maxaad u qabanaysaan oo caawimaad ah? dadka annagu waxaan u geynaynaa imika bacahay roobka ka galaan ayaan u sugnaa, intaasaan dhiigjoojin ka dhigaynaa. marka ilaa iyo hadda roobku ma idiin da'ayaa oo daadadkii ma socdaan? ilaa hadda roobkuu da'aya, taasuna waa socdaa. awal waxani wax dhici jiray miyaa mise wax haddartaan idinku cusub waay? bishii hore sanadkii hore bisheedii nagu dhacay, sanadkii hore bisheedii duufaantii dhacdoo kale weeye iyo xeebaha ku dhacday, duufaantii berigaa dhacdoo kale. maxaa hadda qorshe idiin ah? qorshe annaga waxaa noo ah ummadda wixii aan gaarsiin karray inaan gaarsiino imika, hadday bac tahay iyo hadday cunto tahay wixi aan heli karro inaan gaarsiino ayuunbaa nagu waajib annaga. dadka nin walba halkii au joogay muu joogaa, meel loo baxa ma jirto, war meel loo baxaya ma jirto, nin walba halkii roob ku heli buu taagan yahay, sare taagan yahay, biyuhuna way socdaan. daadkii magaalada kusoo rogmaday iyo kii badda isgaaray waa kuwa weyn, waxa imika ugu daranay waa taa weeyi. marka meelaha qaar waan ka sii daynay, kuwii aan ka sii daynay baa socda. mooska biyaha baddaan ku darray, badda biyihii daadkee soo gala badda ku darray. waa la oodi doonaa haddii ilahay annaga waan oodi doonaa. ilaa iyo hadda wax gurmad ah oo idin soo gaaray ma jiraan marka? maya wax gurmad oo wax na soo gaaray, gurmadka ilaahay mooyaane gurmad biniaadan hayna ma jirto. waxa ka dhashay barakac baa ka dhashay, barakac. dadka guryuhuniyo way ku dumeen, ilaa 20 guri way baaba'een, gobashii iyo cuntadiina way ka raacday. 25 guri dayrashaa ka dumay, dawladda hoose way duntay, local governmentiguna uu dumay. haye baddu dhinac walba badda iyo berigu way isa soo gaadheen, biyihii badda iyo biyihii daadku way isgaadheen, magaalada lama gali karayo. marka xaaladdu waa iska caadi, wax laakiin dad oo ku dhintay ma jiraan. ma daadad ka dhashay roob idiin da'ayba mise
waa badii oo idinku soo fatahday badiina way soo fatahday daadadna way ka dhasheen dushay kaga soo rogmadeen marka sababtu waa maxay ma roobabka saameyn ku yeeshay badda mise waa un daadad dee waxa ku beebay roobabka way baduna way buuxdaa badda oo buuxdaa ayay joogtaa badda oo buuxda roobashuna da'een marka biyihii badda iyo biyihii roobka ee dee dhulka ka yimiday dusha ka yimiday iyo biyihii badda isgaadhay marka waa sidaa weey dadka ku barakacay qoysaska ku barakacay inta ay gaarayaan qoysaska barakacay ilaa 200 oo qoys way gaarayaan 200 oo qoys oo baddu gashay iyo biyihii badda iskugu dhufteen ayaa barakacay marka xagee bay joogaan dadka hadda xaaladooda iiga warbixi dadka de guryahoodii ay bulbulanayaan xagee tagayaan meel loo baxayo ma jirte guryahoodii bay dadku jinkadii iyo looxba isku nanabayaan dadku markii hore ee dabayluhu dhacayeen baa magaalada in laga baxo laakiin imika dadku magaalada iska joogaan xaaladda magaalada niyahow dee haddaan kaaga warramo xaaladda magaalada waxay ku yeesheen jidadkii magaalada soo gelay oo dhan way go-an yihiin jidadkii magaalada soo gelaya way go-an yihiin lagamana baxayo magaaladii lamana soo galayo roobashaa wadooyinkii gooyey daadashaa wadooyinka gooyey marka waa sidaa wey waa sidaa dhaqaalaha ee khasaaray ee deegaanka khasaaraha deegaanka khasaaray khasaare aad u badan weeyo khasaare aad u badan baa dadka deegaanka gaaray khasaaraha meelaha imika deegaanka laftigiisa qaar xoolaha daad ka qaaday baa jira qaar guryihii daad ka qaaday baa jira qaar ay dabayl duufaani ku dhacday oo waxaa jira muxuu ahayy imika annagu aan u gurmanayna hadda oon bacawisnaa jira waan gartay adinku dadka hadda maxaad u qabanaysaan oo caawimaad ah dadka annagu waxaan u geynaynaa imika bacahay roobka ka galaan ayaan u sugnaa intaasaan dhiigjoojin ka dhigaynaa marka ilaa iyo hadda roobku ma idiin da-ayaa oo daadadkii ma socdaan ilaa hadda roobkuu da-aya taasuna waa socdaa awal waxani wax dhici jiray miyaa mise wax haddartaan idinku cusub waay bishii hore sanadkii hore bisheedii nagu dhacay sanadkii hore bisheedii duufaantii dhacdoo kale weeye iyo xeebaa ku dhacay duufaantii berigaa dhacdoo kale maxaa hadda qorshe idiin ah qorshe annaga waxaa noo ah ummadda wixii aan gaarsiin karray inaan gaarsiino imika hadday bac tahay iyo hadday cunto tahay wixi aan heli karro inaan gaarsiino ayuunbaa nagu waajib annaga dadka nin walba halkii au joogay buu joogaa meel loo baxa ma jirto war meel loo baxaya ma jirto nin walba halkii roob ku heli buu taagan yahay sare taagan yahay biyuhuna way socdaan daadkii magaalada kusoo rogmaday iyo kii badda isgaaray waa kuwa weyn waxa imika ugu daranay waa taa weeyi marka meelaha qaar waan kasii daynay kuwii aan kasii daynay baa socda mooska biyaha baddaan ku darray badda biyihii daadkee soo gala badda ku darray waa la oodi doonaa haddii ilahay annaga waan oodi doonaa ilaa iyo hadda wax gurmad ah oo idin soo gaaray ma jiraan marka maya wax gurmad wax na soo gaaray gurmadka ilaahay mooyaane gurmad bini aadan hayna ma jirto